iyadoo ay abaar daba dheeraatay ay ka jirtay gobolka Geeska Afrika gaar ahaan geeyiga ay Soomaalidu degto ayay raxmadda Rabbi ku hortay deegaano badan oo kamid ah dhulka ay abaartu saameysay haddii aynu soo qaadano Somaliland roobab mahiigaan ayaa ka da'ay inta badan deegaanadii ay ka jirtay abaartu way ku diirsadeen dadka ku dhaqan deegaanadaasi abaarta ka jirta Somaliland ayaa ka soo bilaabantay deegaanadii ay ka dhacday colaadda beeluhu ee galbeedka gobolka Sanaag waxaanay ku baahday gobolada Sool, Saraar, Togdheer, Xaysimo, Daadmareer iyo Buuhoodle abaarta ka jirta goboladaasi ayaa cagta marisay xoolihii ku dhaqnaa deegaanadaasi kuwaas oo ahaa laf-dhabarta nolosha bulshadaasi reer guuraaga waxaana ka dhashay abaarta xanuuno ay ka mid yihiin shuban biyood iyo jadeeco oo sababay geerida qaar ka mid ah dhallaankii iyo haweenkii ku noolaa deegaanka waxaana sare u kacay qiimaha maciishada iyo lacagaha shisheeye ee laga isticmaalo Somaliland sida lacagta dollarka Mareykanka waxaana hoos u dhacday lacagta shilinka Somaliland arrimahaasi oo isbiirsaday ayaa sabab u noqday inay halis gasho nolosha bulshada danyarta iyo xoolo dhaqatada ay abaartu caydhaysay waxaana bilaabmay gurmad ay hormuud ka yihiin culimaadiinka ganacsatada qurbo joogta iyo qaar ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanku gurmadkaas oo lagu samata bixinayo bulshada ay abaartu halakaysay balse waxa aad u yaraa gurmadka ka imanayay xukuumadda oo aan door weyn ku lahayn gurmadka abaaraha walow ay magacawday guddiga gurmadka abaaraha ee heer qaran kuwaas oo ay bulshadu ku eedaysay inaanay door muuqda ka ciyaarin gurmadka abaaraha jaaliyadaha Soomaalida ee ku nool dalalka shisheeye iyo shakhsiyaad ku sugan gudaha Somaliland ayaa si weyn uga qayb qaatay taakulaynta dadka abaartu saameysay Dictorayso ayaan jirda Ciise waxay ka mid tahay daayirta Soomaalida ee ku nool dalka Britain waxaanay ka damqatay dhibaatada gaajada haraadka iyo cudurrada ka jira dhulka ay abaartu ku dhufatay waxaanay dhaqaale ka ururisay bulshada muslimiinta ee ku dhaqan dalka Ingiriiska si ay gargaar ugu fidiso dadka tabaalaysan waxaanay safar ku timi Somaliland si ay gacanteeda ugu qaybiso gargaarkaasi iyadoo gargaar gaarsiisay dhowr deegaan oo kamid ah Somaliland waxaana kamid ah deegaanada ay gargaarka gaarsiisay deegaanka Ceel Midgaan ama Ceel Nimcoon oo ay gaarsiisay gargaar isugu jira raashin iyo dawooyin iyadoo baaritaan caafimaad u sameysay dhallaanka iyo haweenka deegaankaasi sidoo kale raashinka noocyadiisa kala duwan ayay u qaybisay bulshada deegaanka Ceel Nimcoon magacay waa Aamina ayaan jirta Ciise waxaan ahay dhakhtarad oo ka timaaday Ingiriiska London sababta kale inuu yimaado waxay ahayd dadkeena masaakiinta ay ku dhibaataysan abaaraha inaan wax yar ka caawiyo fikradda inaan lacag u uruuriyo waxay ka timaaday anigoo Ingiriiska joogo oo iska fadhiya oo arkaya TV-ga ka arkaya dadkeena sida u dhibaataysan yihiin ayaan ka fikiray tolo lacag yar man uruuriyo dadka raashin ugu soo iibino amar ilaahay waxaan u ururinay dadka $8,000 saddex week gudihiisa oo intaas oo dhan awood waxa keentay dadka Ingiriiska jooga oo donation far badan soo siiyay iyo waliba qaar Sacuudiga jooga waxaan doonayaa inaan warka gaarsiiyo dadkeena dibadaha jooga dadkeena aad ay wadanka ugu dhibaataysan yihiin iminka meeshan maanta nimaadnay waxa la yiri muddo dhowr bilood ayaan raashin loo keenay dadkan dawladana warka ma hayso marka waxaan weydiin lahaa dadkeena dibadaha degan in si degdeg ah donation u bixin karaan sida dadka loo caawiyo dawladda waxba ka sugana dawladda xaq mas'uuliyadooda waxa weeyaan waa eber ay ka yihiin sidoo kale Suldaan Saciid Yuusuf Ducaale waxa uu ka mid yahay madax dhaqameedka tirada yar ee dadaalka badan geliyay badbaadinta nolosha bulshada ay abaartu dhibaataysay waa meel dad xoog li degan yahay oo dadna degaan hore u ahaa dadna soo guurto xoolihii halka ay iskaga taageen ay yihiin labada nooc bay isugu jiraan xaaladoodu waa xaalad adag meelahaanu soo marnay ee aanu midiya u soo gudbinayna waxaan oran karaa waa meesha ugu adag guddi abaareed oo qaraniman guddi gobol iman guddi degmo iman oo aan wali cid soo gaadhay jirin maanta waxaanu joognaa tuulada Ceel Nimcoon ama Ceel Midgaan qof waliba sida uu yaqaano oo aan ku qaybinayno raashin mucaawimo ah oo ay u jeedaan dadka jooga maanta itaalkooda yaragooda
raashinka kan marka hore ilaahay baa mahad leh marka xiga waxaan u mahadnaqaynaa hablaha raashinka sida oo ay koow ka tahay Dr. Ayaan Jirde Ciise oo ka soo kicitay cariga Ingiriiska iyo hablaha kale ee la socdaba sida Foosiya Ali Mahdi waxaan leeyahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa iyadoo aan waligeed dulkan arag oo imanin inay maanta raashin soo qaado oo Hargeysa ka soo kicitinto oo jiida dheer soo marto oo dadkeeda soo gaarsiiso oo ay u timaado annaguna waxaanu leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka ha ku saaro adiga iyo dadka kale aad wax ka soo qaadayba qaar kamida bulshada ay abaartu caydhaysay ayaa ereyay suugaaneed ku tilmaamay sababaha keenay abaarta iyo gurmad la'aanta xukuumadda Somaliland suuq meel yaalaba mililka doontinde diintii macaanayd ayaa daba martay sinde watabar lagu melmelay mahadhadenide wargeeli magoolkiyo ahaa xoola mudankooda وكما قارد كوكوبيتان يوم كوسدي يدي مرادها مش لقوادي مركيان سكذا ما نعلي سومريدي إنما ذا مركي مريين مقعدونيا الربا ميسا يلو مشحر دايو مشين كيدي جنبا نقال لايسكو مقادي قيران لو ما كانوا waxay galabsadeen lagu gooyay ishee gaandhari wareegiyo gudidii abaaraha xajiyaal gurmadaya gaadiid la soo raray kasiin iyo bayaba sida geestu ka dhaafay waxay galabsadeen lagu gooyay ishee warkaan ku soo gelina video ku gaarsiin oo goobahan ku qorayn waxay galabsadeen lagu gooyay ishee waxa barnaamijkeedii la socodsiinaya anigu Cali Daahir Maxamed Boos intaan barnaamijkan la mid ku kulmi doono waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh